Duolingo waa application kuu sahlaya inaad baratid luqado aad u fara badan, ha noqdaan luqadahaasi qaar aan jirin ama qaar imika adduunka lagaga hadlaba. Application-kan waxaad ka geli kartaa mobilkaaga ama kombiyuutarkaagaba, isaga oo kuu sahlaya inaad luqado aad doonaysay inaad baratid aad hab tallaabo ah uga baran kartid. Inkastoo luqadaha aad abkan ka dhex baranaysid aadan u baran doonin si dhammaystiran sababo fara badan aawadeed, hase ahaatee waxa uu kuu sahlayaa ugu yaraan inaad shaaha ku cabbi kartid luqadaad jeceshahay inaad baratid, ama aad ugu yaraan fahmi kartid ereyada basiidka ah ama ereyada maalin kasta la isticmaalo. Duolingo waxaad awoodaa inaad la socon kartid hadba heerka aad maraysid, oo maalin kasta kuu soo dhigaya ereyo cusub kuwii aad hore u baratayna kuu sahlaya inaad si dhib yar u xasuusatid. waxaana ku dhex jira abkan gudihiisa imtixaano fara badan oo aad u xiiso badan oo kuu sahlaya inaad ereyada si dhib yar u baratid. waxa uu kaloo leeyahay lefalo aad u fara badan oo aad u baahan tahay inaad martid si aad ugu yaraan luqadan ugu dirsatid liiska luqadaha aad taqaanid. Duolingo waxaad ka baran kartaa luqado aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Isbaanishka, Talyaaniga, Jarmalka, Kuuriyaanka iyo luqado kale oo aad u fara badan. Duolingo sidaan soo sheegnay waxa aad ka geli kartaa website-kooda ama waxa aad soo download garaysan kartaa appka si aad mobilka ugala socotid habka heerka aad maraysid, taasoo aad uga wanaagsan ta website-ka. Alison oo loo soo gaabsaday Advanced Learning Interactive Systems Online waa shirkad iyo akaademiyad bixisa koorasyo aad u fara badan oo ku baxa habka e-learning-ka. Alison waxaa aasaasay Mike Firig, waxaana ku aasaasay Ireland sanadku markuu ahaa 2007. ujeedadeeduna waa inay dadka u soo bandhigto xirfado fara badan iyo aqoon aasaasi ah oo dadka ka caawin karta shaqadooda ama waxbarashadooda. Alison waxa ay xiriir la leedahay jaamacado aad u fara badan oo ay ka mid yihiin MIT iyo Stanford iyo weliba qaar kale oo aad u fara badan. Alison waxaa ka diiwaan gashan in ka badan 5 milyan oo qof oo intooda badan ay ku nool yihiin wadamada kor u soo kacaya, kuwaasoo ka faa'iideysta koorasyo aad u fara badan oo bilaash ah oo gaaraya 800 oo kooras, iyo weliba iyadoo bixisa shahaadooyin ay ka mid yihiin dibloma oo ku baxa 10 luqadood. koorasyada intooda badanna dadku waxay ku qaataan ilaa saacad ama 2 saacadood oo waxbarasho ah, halka kuwa diblomooyinkaina ay qaadan karaan ilaa 9 saacadood ilaa 12 saacadood. Alison oo koorasyadeedu badanaa bilaash yihiin waxa aad awoodaa inaad cilmi cusub oo waqtiga ama jeebka kuu saamixi waayey aad si dhib yar u barato adoo gurigaaga jooga, oo waxaa kaliya aad u baahan tahay noqonayso inaad internet haysato. koorasyada Alison waa qaar aad u fara badan oo ka kooban min English, design, saxaafadda ama journalism ilaa fitnesska ama aqoon ku saabsan cilmiga kobcinta caafimaadka jidhka. koorasyaduna waa qaar aad si dhib yar ula socon karto iyagoo ay la socoto badanaa video, qoraalo iyo weliba shahaado kolka aad dhamayso lagu siinayo. edX waa website bixiya koorasyo caalami ah oo aad u tiro badan. website-kan waxaa aasaasay labada jaamacadood ee aadka u heerka sareeya ee MIT iyo Harvard sanadkii 2012. waana website non-profit ah, taasoo uu kaga duwan yahay website-ka kale ee la nooca ah ee Coursera. edX waxaa ku xidhan in ka badan 70 iskuul, ururo non-profit ah iyo shirkado, kuwaasoo website-ka soo geliya koorasyo fara badan. jaamacadaha ku xidhan website-kani waa ay fara badan yihiin, waxaana ka mid ah sidaynu soo sheegnay MIT, Harvard, Brown, Princeton iyo Hong Kong iyo weliba qaar kaloo fara badan. ururada ama hay'adaha ka qayb qaata koorasyadana waxaa ka mid ah Amnesty International iyo International Monetary Fund ama IMF. edX iyadana waxaa ka diiwaan gashan in ka badan 10 milyan oo ruux oo ka faa'iideysta in ka badan 1270 kooras. koorasyada ay bixiso edX waxa ay leeyihiin video iyo buug loogu talagalay hadba kooraska aad dhiganaysid, iyo weliba discussion groups aad dareemaysid inaad galaaskii tooska ahaa dhex joogto. kolka aad dhamayso koorasyadana waxa edX bixisaa shahaadooyin muctarif ah oo ay soo saareen hadba iskuulka ama jaamacadda kooraska bixinaya. koorasyada iyo shahaadooyinka qaarkood waa qaar aad lacag bixinaysid oo hadba ku xidhan kooraska nuucuu yahay iyo cidda bixinaysa. edX waxaa kaloo ay bixisaa koorasyo ay ku magacowday Micromasters oo heerka masterka ah, kuwaasoo marka aad dhamayso ama aad lacag bixin karto si aad shahaado u hesho caalami ah ama aad iska dayn kartid shahaadada. sida koorasyo la taxalluqa Financial iyo Accounting Management, Project Management, Artificial Intelligence iyo qaar kale. koorasyo kale oo ay ugu magac dareen Professional Certificate waxaad awoodaa inaad xirfad barato ay bixiyaan barofesorada adduunka ugu cilmiga badan marka ay noqoto xirfadahooda.
iyo jaamacado la aqoonsan yahay, dabadeedna aad shahaado ka hesho caalami ah. balse adeegani isagu ma aha mid bilaash ah. koorsada ay edX bixisaa waa ay tiro badan yihiin, waxaana ka mid ah qaar la taxalluqa finance, computer science, leadership skills iyo qaar kaloo badan. Coursera waa website ay aasaaseen profesoro ka dhiga jaamacadda Stanford oo bixisa koorsooyin iyo aqoon online ah, saldhigeeduna yahay California, Mareykanka. Coursera waxaa ku xidhan oo ay xidhiidh la leedahay jaamacado adduunka laga ictiraafsan yahay oo tiradoodu leeg tahay 149 jaamacadood oo laga leeyahay 29 waddan oo kala duwan. jaamacadahaas waxaa ku jira kuwa adduunka ugu wanaagsan sida Stanford, jaamacadda Manchester, Princeton, jaamacadda New York iyo ta London. inkastoo Coursera aad ka heli kartid aqoon bilaash ah oo badan, waxaad kaloo awoodaa inaad koorsada qaarkood bixisid lacag kuna qaadatid specialization certificate oo ay bixiyaan jaamacadaha aynu soo sheegnay, taasoo aad CV-gaaga ku dari kartid kana caawin kara horumarka noloshaada. waxaad kaloo Coursera awoodaa inaad ka qaadan kartid master's degree laga aqoonsan yahay daafaha dunida adoo gurigaaga jooga. koorasyada faraha badan ee bilaashka ah laftigooda waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad kolkaad dhamaysid heli kartid shahaado muctarif ah, balse iyadana lacag yar waa inaad bixisid oo runtii ah fursad aan la heli jirin. koorasyada uu bixiyo website-kani aad ayay u fara badan yihiin, waxaana ka mid ah business, cilmiga bulshada, ilaa koorasyo kaa caawin kara inaad fahamkaaga kobciso ku aadan tacliinta, qaar loogu talagalay inaad carruurtaada ku fahmi kartid kuna horumarin kartid oo waalidka khuseeya, iyo qaar kaloo aad u fara badan. intaa ka sokow, Coursera waxaad awoodaa inaad si dhib yar ula socon karto heerka aad marinayso casharadaada adoo helaya duruus nidaamsan oo fiideo iyo qoraalba leh oo aad dhigan kartid hadba markaad waqti u haysid adoon isdejinayn. Coursera waxaa kaloo uu leeyahay application aad mobilkaaga kusoo dejin kartid oo kuu sahlaya inaadan u baahan computer oo isna hawl fududayn kale ah. Archive waa website non-profit ah oo lagu kaydiyay macluumaad aad u baaxad weyn, sida website-yo hore u jiri jiray, filimaan, fiidiyoyo, sawiro, games iyo ta ugu muhiimsan ee aynu uga socono maanta oo ah buugaag ayu nooc ah. buugaagta ku jira website-kani waa qaar bilaash ah oo u sahlaya dadka aan awoodin inay iibsadaan amaba hantiyaan inay si dhib yar ula soo degi karaan. adoo awoodo inaad kula soo degtid buugaagta iyagoo PDF, Mobi, EPUB ama torrent ahba. dadka wax akhriska jecel aad ayuu faa'iido ugu yahay website-kani, isagoo ka saacidaya inay ogaalkooda kordhiyaan si dhib yar. Open Tuition waa website aad bilaash uga baran karto cilmiga xisaabaadka ama accountancy-ga iyo weliba culumta la xidhiidha finance-ka, waxaana aasaasay John Moffat sanadku markuu ahaa 2008. Open Tuition waxaa ka diiwaan gashan in gaadhaysa 500 oo kun oo ruux oo ka faa'iidaysta casharada bilaashka ah ee website-kani bixiyo. inkastoo aad si guud uga baran karto website-kan cilmiga xisaabaadka iyo culumta kale la xidhiidha, haddana waxa uu faa'iido gaar ah u leeyahay ardayda doonaysa inay qaadato shahaadada ama certification-ka caalamiga ah ee ay bixiso ururka ACCA ee ay hoos yimaadaan xisaabyahanada professionaalka ah ee adduunka laga aqoonsan yahay. ACCA sidaynu soo sheegnay waa urur bixiya professional qualification khuseeya cilmiga xisaabaadka, waxaana ay bixisaa aqoonsi caalami ah oo kuu sahlaya marka aad dhamayso 14 kooras ama imtixaan ay bixiso inaad adduunka meel kasta ka shaqayn karto, welibana qaadan karto degree ama masters ay bixiso Oxford Brookes University oo aad u baahan tahay inaad dhamayso koorasyadan ama imtixaanadan. ACCA imtixaanada ay qaato ma aha qaar bilaash ah oo lacag ayay qaataa. iskuulada dhiga waxbarashada ACCA-duna waa kuwo u baahan lacag kaloo fara badan, iyaguna meelaha qaarna sida dhulkeenna lagama helo iskuulo bixiya casharada muhiimka u ah shahaadadan faa'iidadoodu badan tahay. sidaa daraaddeed ayaanu website-kan u soo qaadanay si ay uga faa'iidaystaan ardayda ku hanweyn inay certification ka qaataan ee doonaya inay professional accountants iyo auditors noqdaan. oo ugu yaraan meesha waxa uu website-kani ka saaraya lacagtii aad ku bixin lahayd iskuul aad dibadda u aadi lahayd, adigoo keliya imtixaanka lacagtiisa oo ACCA qaadato isku taxallujinaya. imtixaanada ACCA waxaa lagu galaa meelo badan oo dhulkeena ka mid ah sida Hargeysa iyo Muqdisho. website-kan waxaa ku jira lecture habka fiidiyoga loo diyaariyey oo aan kalaas ka dhicin lana soo koobay, buug bilaash ah oo khuseeya hadba paperka aad galayso imtixaankiisa, flash cards kaa caawinaya inaad si dhib yar u xasuusato meelihii ugu muhiimsanaa, casharadaada laylisyo aad isku tijaabin kartid, iyo weliba imtixaano bilaash ah oo online ah oo markiiba isa saxaya.
waxa ay ardayda website-kan ku xidhan sanado badan ka tirsanaayeen ardayda ugu sarreysa kaalmaha imtixaanada ee ACCA qaato, iyagoo Open Tuition oo bilaash ah ugu ka faa'iidaystay. Memories oo website aqoonta laga kororsado oo guud ahaan laga baran karo luqado kala duwan oo caalamka lagaga hadlo. Website-kan ama application-kiisu waxaa ku jira in ka badan 150 kooras oo la taxalluqa luqadaha oo keliya iyo guud ahaan 25 luqadood oo aad baran karto. Memories waxaa ka diiwaan gashan in gaadhaya 20 milyan oo ruux. Memories waxaa aasaasay culimo ku takhasustay cilmiga neuroscience-ka iyo kobcinta xusuusta bani'aadamka, waxaana ay aasaaseen sanadku markuu ahaa 2012. Abkani waa mid ku guulaystay jaaisado badan oo caalamka laga bixiyo, isagoo sanadkan aynu ku jirno ku guulaystay abka ugu wanaagsan ee telefoonada Samsung-ga laga dhex isticmaalo. Memories waxa uu kuu sahlayaa inaad luqado badan aad si dhib yar u barato, sida Ingiriisida iyo Carabiga, isagoo weliba leh imtixaano iyo tijaabooyin xiiso badan oo aad kula socon karto horumarkaaga, xusuustaadana u sahlaya inay in badan ku jirto. Intaa ka sokow, Memories waxaa kaloo uu bixiyaa koorasyo kale oo fara badan oo la taxalluqa culuum fara badan sida taariikhda, xisaabta, cilmiga bulshada iyo sayniska, iyo qaybihiisa fara badan sida biology-ga oo aad iyagana u baran karto si dhib yar oo aad looga shaqeeyay kana kooban tijaabooyin aadan ka caajisayn. Inkastoo sidaynu soo sheegnay Memories ay website leedahay, haddana waxaa kaga habboon adoo ku soo dejista mobilkaaga isagoo ab ah. Abkuna sidaynu soo sheegnay waa mid maskax badan la geliyey si ay dadku si dhib yar u hantaan cilmi hab fudud oo haddana xiiso badan. Website-keenan 8aad ee Examine oo website encyclopedia ah ama aqoon badan lagu soo ururiyey, aqoontaas oo khusaysa caafimaadka jidhka iyo nutrition-ka ama culum ku saabsan cuntooyinka aynu cunno maalin kasta. Inkastoo website-kani aanu sidii kuwii hore bixin koorasyo bilaash ah oo koorasadiisu ay lacag yihiin, laakiin aqoonta ku duugan oo aad u muhiim ah daraaddeed ayaanu liiskan ugu darnay. Aqoontaas oo kaa caawinaysa inaad si cilmiyeysan u baari kartid hadba waxaad u baahan tahay inaad ka barato cilmiga nutrition-ka ee khuseeya cuntooyinka. Tusaale ahaan, haddii aad maanta doonayso waxa cilmi baarisadu ka yidhaahdeen toonta ama beedka, waxaad awoodaa inaad website-kan si dhib yar uga hesho adoon is-hawlin oo aad kana faa'iidid wax aqoon ku dhisan, isagoo website-kani soo koobaya hadba mawduuca aad u baahan tahay, faa'iidadiisa iyo waxa uu ka kooban yahay, iyo weliba waxa cilmi baarisyadu muujinayaan ee dheef iyo dhibaataba uu ka sheegayo. Tani waxa ay ka hortag u noqon kartaa ku-tiri-kuteenada badan ee bulshadanu faafiso ee khuseeya cunto gooni ah, adigoo wixii been ah ama run ah si dhib yar u baari kara. Qoraalo badan oo ka hadlaya su'aalaha loogu weydiinta badan yahay dadka ku takhasusay cilmiga nutrition-kana waxaad ka heli kartaa website-kan. Website-kan faa'iidadiisa waxaa kaloo ka mid ah inaad iska ogaato cunto kasta ama waxyaabaha cuntada la xidhiidha waxa cilmigu ka yidhi, adigoo markaana awoodi kara inaad go'aano ka gaadho cuntooyin gooniya oo caafimaadkaaga u san ama u xun, iyo weliba inaad jidhkaaga ku dabaqdo cilmigan oo aad hadba qaadato ama cunto waxaad u baahan tahay si aad u gaadho hankaaga ah inaad culays dhintid ama muruq yeelatid ama caafimaadkaaga guud ee jidhka u kordhisid. Gabagabadii, inkastoo aanu website-kani sida kuwa kale liiskan ku jira aanu koorasyo iyo kalaasyo lahayn, shahaadooyinna aanu bixin ama buug aan laga dejisan karin, haddana aqoonta ku duugani waxay kuu sahlaysaa inaad ka dheefto oo caafimaadkaaga jir ahaaneed aad sare ugu qaado. Cuntooyinka aad qaadatid iyo waxyaabaha la xidhiidha cuntadana aad cilmi waafi ah ka hesho oo ku dhisan cilmi baarisyo iyo tijaabooyin. Khan Academy waa website uu aasaasay macallin magaciisa la yidhaah Salmaan Khan. Website-kani waxa uu bixiyaa koorasyo ayuu nooc ah oo la xidhiidha culuum aad u fara badan oo bilaash ah. Khan Academy inkastoo sidaynu soo sheegnay uu bixiyo koorasyo badan, haddana waxa uu faa'iido gaar ah u leeyahay carruurta oo uu u sahlayo inay waxbarashadooda iskuulka ku naqtiimaan oo ay si dhib yar u xasuustaan. Waxa uu leeyahay casharo koobsanaya kalaas kasta sida xisaabta, sayniska iyo taariikhda. Waxaa website-kani ugu soo gudbiyaa casharada hab video ah oo aad u xiiso badan oo ardayga dareensiinaya inuu kalaas ku jiro, iyo weliba isagoo leh imtixaano fara badan oo xiiso badan laftirkoodu oo qofku isku tijaabin karo. Intaa waxaa dheer in website-kani uu ardayga u sahlayo inuu horumarkiisa la socdo, welibana waxaa kaloo leeyahay badges aad website-kan ka urursan karto oo kala adag sida loo helo. Badges-kan oo ardayga u noqon kara dhiirigelin ku xiiso gelinaya inuu casharada wada dhigto website-kani bixiyo si uu ula tartami karo ardayda kale website-kan ku xidhan, iyadoo tani ilmaha iskuulka dhigta ama ardayda kaleba ku abuuri karta xiiso ay u qabaan casharadooda. Habka tijaabooyinka ama imtixaanada website-kan loo alifayna waa qaar laftigoodu aan caajis abuureyn oo u dhigan habka gamiska. Website-kani waxaa kaloo uu bixiyaa culum kaloo badan sida culumta kombiyuutarka iyo programmingka, cilmiga dhaqaalaha, taariikhda guud iyo culumta xisaabaadka iyo businesska. Khan Academy isaguna waxa uu leeyahay application aad mobilkaaga kusoo dejisan kartid. Website-keena ugu dambeeya oo ah ka ugu muhiimsan liiskan
waa ka Islamic Online University ee uu aasaasay Sheekh Bilal Philips oo uu ugu talagalay inay dadku si dhib yar uga bartaan diinteena xaniifka ah. Jaamacaddani waxa ay bixisaa culuum badan oo la xidhiidha diinta Islaamka, iyadoo jaamacaddu ku baxda hab online ah oo hawl fududeynteeda leh. waxaana ay bixisaa jaamacaddu shahaadooyin badan oo ay ka mid tahay shahaadada digriiga oo aad ku qaadan kartid culuumta kala ah luuqadda carabiga, business administration, IT, education, Islamic banking iyo finance, iyo psychology. waxaa kaloo uu website-kani bixiyaa xifdiga qur-aanka oo aad ijaaso ka qaadan kartid, iyo weliba culuumta diinta oo aad ilaa masters ka gaari kartid. sababta aynu liiskan ugu darnay website-kan ayaa ah inuu bixiyo koorasyo badan oo taabanaya mawduucyo kala duwan sida parentingka ama sidaad waalid san u noqon lahayd. waxaa kaloo uu bixiyaa koorasyo kaloo diblooma ah oo gebi ahaan bilaash ah, sida ka culuumta diinta oo aad si wanaagsan u dhigan karto adoo gurigaaga jooga, waqtigaagana qaadanaya. kooraskan dibloomada ah ee bilaashka ah ee website-ku bixiya waa mid uu Sheekh Bilal dhigayo, waxaana uu ka kooban yahay casharo heerar kala duwan leh, kuna baxaya fiidiyoyo iyo weliba qoraallo habka PDF-ta ah oo si wanaagsan loo soo agaasimay, oo taabanaya qaybo kala duwan oo cilmiga diinta ka mid ah sida fiqiga iyo caqiidada, oo aynu dhammaan u baahannahay inaynu fikrad ka haysano ugu yaraan. koors kastaana dhammaadkiisa waxa uu leeyahay imtixaano aad isku tijaabin kartid. sidaynu soo sheegnay, website-kan waxa aanu muhiimadda ugu sarreysa u siinay fududeynta uu dadka u fududeeyey cilmiga diinteenna oo faa'iido u ah aakhiradeenna oo wax kasta ka muhiimsan.